horta khilaafku wuxuu ka mid yahay masaa'ibka adduunka ee waaweyn waana waxa khilaafku waa waxa dawladda dhisan oo waaweyn rida ee roga horta wixii taagnaa ee dhowrka sanaba taagnaa ee aynu labadaa dhagood uu lahayn tol maxay noqon doontaa khilaaf buu ahaa mar haddii lagu yiraahdo khilaafkii waa laga heshiiyey alxamdulillaah ma wax kale oo inala gudbeen ma jiraan khilaafka laga heshiiyey aad baan soo dhaweynayaa dadka diidan ee ka soo horjeedana yaanu khilaafku waxay ku falayaan garan maayo runtii markaan dhow walba ka eegay qof khilaafku iyo ishaysashadu iyo isjiidku iyo iscaygu uu leeyahay faa'iido kuma jirto Soomaaliland marka waxaan leeyahay waxaan faa'iidada lahayn hal laga haro waxa faa'iidada hal raaco Soomaalilandna waxa u dana ictiraaf ma haysano waxa u dana heshiiska waxa heshiis ku tahay waxaan halka ku soo gaadhay ma yahay sharcigan raacaya ma yahay waxa ahayd khilaafka baabiya halka waxaan ku soo gaadhay ilaa ina cigaal war khilaafka joojiya markuu khilaafkaasi ka damo waxa xukumaysa xukum sharciga raacaysa ma raac laakiin inta khilaafkaasi jiro maxaa masaajidka lagu soo tukan laayay habeenkii baad ka seexanayni cibaadadaadii iyo camalkaagii baa khatar ku jireen wax alla waxaad qaban kartaa ma jirto intaad nin iska celi ka iska celi kuwa iska celi waxa la Soomaalidu waxa ku baa jirtay ay iscunaysa warama iska bacliso wadan dhan baynu u doonaynaa faa'iido iyo ictiraaf wadan ka dham ictiraaf iyo wanaag iyo meel mar wuxuu ku helayaa heshiis iyo maqaalufo iyo isticlaan iyo dhan loo wada jeesto haddii la kala jeesto waxa la qaban karaa ma jirto waa in dhan loo wada jeestaa waxa leeyahay maanta dhan bay wada jeedaan hala taageero